يا إثيوبيا نعب إثيوبيا حي الصومالي دمعضي كوسو ديرته وحوين عيدي جرا عيدي مكولد صدح معنا كدب بيتك سوقش إلا ما أنتنا عدة لا دجالميس إثيوبيا كعبسته وهدي اللي يراهدو باشا هوية إسكده الصومالي ذا كلام حلقة ربعة إني عضيان يعني الصومالي ما ضد مركب مثل مركب ربع وحي عن سكوتر صنع الشيء جاي بين بعد واحد ركز سانين بام مدحوينه ما من قبل كان قال وحوليه هاي أنا وحرك من دولة جري إثيوبيا حرب ولا يلنا يعني وحنا أقول تليه أبي إنه يري وحسوق بستي ما من قبل هذه أيه وحسوق بستين إنه كم نقطان ما من قبل هذا ورد ركوب هالسكديكو إن نن نعبت هاي أما بال نعبت هاي هذا حبش ولي استاكتو أو ياش أنا بحول التاني ريالي وشرف يا كرامة يا مدينين إن حبشته صار عبسته أين كل يرنين نقولك أوليه هاويو dadkii kale Soomaaliyeed gobonimada sheeganay maanta la soo joogaa hadii faan wax taraya faanka iyo gobonimadu maanta ay taagan tahay qof walba wuxuu yani waxa uu yahay maanta ayaa la arkaya Ethiopiaanku inaan qaybsanahay waa waxa ay u soo ordayaan waa waxa ay u sameeyeen dad qabiilada yani barbaad gareeyo waanu diidnay waxaan dhahnay anagu waxba naga ma dhaxeeyo daaroodii habiyo waxba ma dhaxeeyo axmedooba ugu sokeeye yani ninku la dagaalamay waa ra'iisul wasaaraha musharaxiintu waa rag daarood farmaajo wuxuu ahaa waxa ay adeegsanaysaa noocaas laakiin waxa uu rumeeyay dadka walaalahanaga oo aan tuseenin diirkooda uusan dubaaxaneenin aan muujineenin in cadow soo socdo oo ku caada qaato oo anaga naga mid ah markuu sheego qabiil baa loo socdaa Ethiopiaanka ka aamusaya war xabash waa kii shalay dilay waa kii 84 qaybiyo dalkood ku darsaday waa kii 91 ilaa hadda ana burburinayay waa kii aniga adiga waxba noo ogolaan kacbadana duminayo marka saas darteed way adeegsanayaan qaybintuna weligeed way soconaysaa inta caada qaatayaasha la maqlayo qof kasto Soomaalina ha diyaar garooba inta yar oo Soomaalinimadu dhabka tayaan ku filan waxay wataan dabaabado waxay wataan kaariyaan casri ah oo arkay oo soo galayo waa in lagu talagalaa hubka sidii looga furan lahaa waa in lagu talagalaa dagaal waa mahurto farta waa la saaraya kama shakino in la isku dhacayo laakiin yaa lagu talagalin inaan gudaha Soomaaliya ku dagaalamno waa in lagu dagaalamo dalkooda gudaheeda Ethiopia waxay leedahay 5 bridge oo khatar ay leedahay 5 bridge dilay gubo waa khatar hadii anagu lama doonayno dhibaato lama doon laakiin haday nagu doodo miyaan uga fadhinaynaa dams weyn bay leedahay yaa miya laga fadhinayaa wala yaqaan waxa la sameyn lahaa nin dhala ku jiro dhagax ma tuuro doqonimadoodu waxa weeyaan yani ha kula jiraan kaniisaduhu iyo cadaawad islaam baan la dagaalamayaa samee darteed buu soo wadayaa wiilasha meesha la keenay oo faano iyo oola ka soo cararay yani qabuurtoodu waxay noqon doontaa Soomaaliya dawladdu mandate hasiiso shacabka macawisley iyo meel walba oo la jooga baaluhu ha ishubayaan hana la dhaqaaqo ayada oo informationka dawladda iyo xeyndaabka sharciga lagu soconaya hala dagaalamo maxaa loo dagaalamayaa war to justice inaan cadaalad helo oo dalkanaga sovereignty-ganaga shuruucda caalamka anaga oo ilaalinayna inaan war isaga oo dalkiisa ka soo gudbay oo Soomaaliya soo galay oo ilaa geda soo galay ayaa ku faantamaya dawladaydan u dagaalamaya adigoo dalkaaga leh saad uga xishoonaysa inaad tiraado waan la dagaalameynaa saad uga xishoonaysa dal waliba halka ma aha adduunka meel kasto jiraan waa in marka wax lagu yeelaa safaaradahoodu waa inaysan badbaadin ganacsatadoodu waa inaysan diblomaasiyintoodu waa inaysan badbaadin maantana afkooda waan wada naqaanaa waxa jirta kumanaan kun oo Soomaali ah oo loo maleynayo TPLF inay yihiin amxaare inay yihiin oo inay Oromo yihiin daway noo taala Ethiopia waxa u fududeynaya inay Soomaaliya soo gasho ku dhiirato dawladdanadoo diiday waxa weeyaan waxay horay u dhisatay federal wax loogu magac daray oo aan wali dhameystireen oo on process ah federal loogu talagalay aan hadda adduunka ka jirin systemka Soomaaliya ka jira federalkeedu ka jira Kenya noo dhow waxa weeyaan waa devolution system 47 county ayaa jira dawladda ayay toos u hoos yimaadaan go'aanada dibadda ma galaan dawladda ma barbaryaacaan Ethiopia waxay ku dhiirigelisaa inay heshiis arrimaha dibadda la gasho arrimaha amniga la gasho haddadan waxa jira madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa Addis Ababa jooga si uu ula galo heshiis in ay Ethiopia joogaan oo ayagu mandate siiyaan Ethiopia sharciga caalamka ma qadariso Soomaalina waxay ku talagashay markay shanta u qaybinaysaa weliga naga Balkanism ahaano waana sababta ay Somaliland ula gashay heshiiska xaaraanta
sidii sabab federaalka hadduu faa'iido leeyahay suudaan buu wax u qaban lahaa oo waxaa ka go'day South Sudan ayaa ka go'day waad ogeydeen wuxuu kala gooyay federaalkan qaabka daran Yugoslavia waxaa ka go'day wadamo aad u fara badan baa ka go'ay waxaa ka mid ah Slovenia, Bosnia, Croatia, Serbia. Sovietka waxaa ka go'ay Russia iyo Ukraine iyo Belarusia way kala go'een. Ethiopia hadda iyada lafteeda oo balaayada nagu wada ayaa waxa ka socota Oromo iyo TPLF. Sudan 2011kii South Sudan ayaa ka go'ay. Belgiumka hadda walaac ayaa ka jira hadduu faa'iido leeyahay oo ay ka yaaban yihiin. Ciraaq Kurdiga iyo dawladda ayaa soo kala horjeeda. Pakistan waxay ka go'day iyo Bangladesh hal dawlad ahaayeen federaalku wuxuu sababay inay kala go'aan 1971dii. Nigeria sababta ay u deganaan u laadahay dalka Afrika ugu weyn oo ethnica ugu jiro wax weeyaan waa federaalka. India Kashmir iyo arinta ka jira waad ogtiin. Federaalka Soomaaliya ka jira waxa uu sababay in kalaan loyalty oo ka jiro qabiilka dadku maamul goboleedku uu noqdo maamul beeleed waxa uu keenaa in dawladdu ay daciif noqoto marka ay daciif noqotana waxa dib noqonaysa inay kontroosho dhulkii waana sababtan hadda u fududeynaysa Ethiopia inay soo gasho annagoo isku qabiila isku afa ay Ethiopia waxay nagu qasabtay inaan federaal qaadano waliba federaal aan cayineen aan caalamka ka jirin oo ka bilowda badda ku dhamaada xadkeeda amni ahaan ayaa khatar gasha resource-ga in la qaybsado kheyraadka ayaa weligeed dhib ah international influence saameynta arrimaha dibadda ayaa khatar ah oo dalkii adiga ku doonay inuu khatar ku galiyo oo dawladdu ay ka diido wuxuu u tagayaa maamul goboleedka waxay sameeyaan mid caada qaata ah oo ay og yihiin inuu dalkiisa iibsanaya Axmed Madoobe oo kale saaxiibkay okay public trust waxa aad u yaraanaya dadku inay aaminaan dawladda because dawlad maamul goboleedkii ayaa waxa qabsanaya qabiil dawladdii waxay u keenaysaa dawlad ay beel leedahay maamul beeleed ayuu noqonayaa marka public trust ayaa iyo legitimate inay yani lagu kalsoonaado okay transition to stability waxa dib noqonaysa in laga gudbo conflictiga aan ku jirno caqabad dagaalada aan ku jirno oo nabad loo gudbo ayaa aad u adkaanayso maadaama Soomaalidu ay qabiil iyo aad u qiimeysa hal dawlo oo rule of law kala dambeynta iyo ma jireyso maadaama aanu qaadanay maamul beeleed yani sida Puntland oo kale ninkii meesha jooga ama aan dhaho koonfur galbeed ama aan dhaho Hirshabeelle qofkii meesha joogo ama Hirshabeelle inta joogta waxa xanaaqaysa wad aragteen Hiiraan ayaa xanaaqaysa hadda waxa dagaal ka dhex jiray Xawaadle iyo Abgaal waxaasna waxa lagu talagalay yani maamuladu inay noqdaan maamul beeleedyo waxa aan la simin saami qaybsiga ayaan la simin waxaana lagu qasbay inaanan ka gudbin doorashadan dadban yani uu qofku soo salagtay garanaya Axmed Madoobe oo kale qofku uu noqonayo xildhibaanka isaga ayaa hebel iyo hebel dhahayo marka saas darteed waxa weligeed soconaysa in dadku ay u dagaalamaan noocaas waxa aad u adkaanaysa in dawladku ay nabad noqdaan taas marka Ethiopia ay ku guuleysatay malas iyo mahiga marka ay sameynayaan dan bay kala haayeen dantii maanta ay aragtiin maanta waxaad aragtiin in Ethiopia oo bax la yiri ciidamo cusub ay soo galinaysa 500 oo tignika inay soo galinayso ayaad aragtiin maanta dawladdu way ka aamusnayd markaan anagu hadalay kadib ay aragtay anigu waxaan xiriir leeyahay Ethiopia gudaheeda ilaa madaxdeeda dadka Ethiopiaanka Oromo ha noqdo Soomaali ha noqdo dad xun maahan laakiin teamkan hadda jooga waliba ninkan Abayo oo asal ahaan Oromo sheegta laakiin falaasho ka soo jeegta ayaa arintan wata iyo malaski ka dambeeyay Soomaaliya hadday doonayso inay badbaado waa inay ka noqotaa federaalkan qaab ka daran oo la qaato Kenyan federal devolution la qaato maxaa wax Afrikaanka diiday dadka ka cararayo maxaa anaga nalagu qasbay anagoo marka hore mid ahaan anagoo dawlad aan lahayn dawlad degan aan lahayn saan nalagu qasbaya waa nacasnimo waa gunnimo waa doqonnimo nimaad og tahay inuu ku qaybinayo ku kala wado diintaada uu farageliyo doonaya inaad siisa ushu kugu garaacayay waxa ku filan baarlamaanka haddaba inta laaluush la siyaa wixii la doona laga ansixiyaa labada aqal intii xataa wixii la doona la sameeyo la ansixiyo federaalkan qaabka dar laga noqdo oo laga dhigo maamul goboleedyada governor laga dhigo ayaa sax ah oo awoodda la dhaadhicinayo ay noqoto serviceka adeega ay qabanayaan korontada yani shuruucda iyo bulshadu say isu maamuli lahayd gudaha arrimaha masiiriga hadda arrimaha gaashaandhigga dawladda iska leh Jubbaland ma ogolo
puntland ma ogolo koonfur galbeed ma ogolo galmudug ma ogolo dawladdu maxay dawlad ku noqonaysaa waxaan noo qoranna waxa weeyaan arrimaha gaashaandhigga amniga arrimaha dibadda arrimaha lacagta migrationka dawladda iskale miyaan u daanaa may because haddii aan xoogaa hadallo Ethiopia u yeeraysa siday maantaba Jubbaland ugu yeertay war hooy hadda hala taxadaro fursad maantaan haysanaa qof walba meeshuu joogo dagaal ha ka ogaado qof walba meeshuu ka joogo waan hubaa waliba inta koonfurta dhaxay dad Soomaalidu waa la isbartay markii la yiraahdo xabashi dad u dagaalamay ka baqaysaa jirto iyo dad ay doonayso oo ku soo dhiirato goboladan dhaxe nasiib wanaag waa dadka ugu wanaagsan oo xabashideedka ayadoo ka baqdo maanta la is arkayaa haddii aad gumaysidiitiin maanta cid walbaba hadday ku soo gasho waa inaad meesha ka difaacdaa because xasan uma hilinaysid dalkaaga u hilinaysaa xabashi waa taqaani waxay luuq ku dhigtay ilaa geda iyo doolar waxay ku dhigtay eradication bay sameysay waa un isla tii xasan inaad ku xumayso maanta xabashi ma noqonayso abeeso ma noqonayso marna luul iyo kuma noqonayso dheeman axmed madoobe si kastuu usoo dhawaado xabashi may noqonaysaa hadday wax tarayso cabdullaahi yuusuf 77 dagaalka markuu galo soo noqday oo siyaad barre isku dhaceen wuxuu tagay 78 sirtii dawladda dhan ayaa wuxuu u dhiibay Ethiopia xabsi bay gelisay 6 sano ku jirtay because waayo xabashi waa xabashi haddaad u tagtood aamintood isku daydo inaad daacad uga dhigto waxay ku ogyihiin inaad Soomaali tahay waxay ku leeyihiin maxaad doonaysaa inaad naga samayso wuxuu og yahay waxaad isagu ka aaminsan siyaasad xun bayna jaarkana naga aaminsan oo dhowr jeer ka hadlay on ban africanism uga hadlay waxaan iska daayandhay laakiin aan ogaaday inaysan daanayn waxay aaminsan yihiin oo xagga gumaysiga ka imaaday jaarkaagu intuu dhib ku jiro ayaad horumar ku jirtaa sidaas awgeed weliganaga way nagu wadayaan jaarkanagu dhibkan annaga ayaa nalaga rabaa diblomaasiyiintanada iyo dawladdanada inaysan noqonin maamul kooxeede dadka kartida leh wax alafi kara istiraatiijiyad cusub la imaan kara dadka kicin kara naftooda huri kara Soomaalinimadu dhab ka tahay oo inay wax boob ka ahayn in la adeegsado hore loo socdo oo dawladda saa lagu difaaco iyo